Jidkan maristiisa waxaa dhibaato weyn ku qabay bulsho laba gobol isaga kala gooshta waa magaalooyinka Buuhoodle iyo Laascaanood. Haddaba isku tashi ay la yimaadeen bulshada ku dhaqan degmada Woodward ee gobolka Cayn ayaa waxay bilaabeen sidii jidkaasi ay u banayn lahaayeen isla markaasina ay uga samayn lahaayeen jid bulshadu ay dhib yaraan ku marto. Isku tashigaasi ayaa waxa uu dhaxlay in 83 kiiloomitir magaalooyinka Tuulo Samakaab ilaa iyo Goonle ay baneeyaan isla markaasina ay cagaf geliyaan. halkan aan joognaa waa Woodward gaar ahaan wadadii socotay ee la sameynayay baan joognaa ee isku xidhaysay labada gobol gobolka Laascaanood iyo Buuhoodle ama gobolka Cayn labada gobol isku xidhaysay baan joognaa oo ka bilaabantay sanadkii la soo dhaafay hore horaantiisii laga bilaabay magaalada Goonle oo qaadkeedii arintaas oo ku bilaabantay isku tashi bulsho oo dadka deegaankan degan ee u dhashay ay isku tashadeen wadada inay bixiyaan markay siyaabo badan u eegeen ay arkeen wada xumada jirta goboladan SSC ama Sool Sanaag iyo Cayn isku xidhkoodu inuu u baahan yahay wadadan ay muhiim ku tahay sahan badan markay galeen ka bacdi isku tashi ay ku bilaabeen wadada hadaan ka warrano 83 kiiloomitir baa la ood qaaday Goonla laga soo bilaabay Tuulo Samakaab bay ka dhacday laamiga feeskaas kii hore ahaa feeskii labaad waxaa la dhigay caratuurkii jaygii baa la dhigay oo la kala bixiyay qiyaas ah 10 kiiloomitir ayaa la dhameeyay oo sida aad aragtaan la kala bixiyay iyana intaas ka qabsantay feeskii labaadna qarashaadka ku baxaya iyo waxaasi hadaan hadda ka sheekayno feeskan caratuurka 2 kiiloomitir 10 kiiloomitir halkii kiiloomitir waxa ku baxay 200 iyo something baa ku baxaya lacag aad u fara badan ayaa ku baxaysa marka baaqayagan wuxuu daaran yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto waxaan ugu baaqaynaa wadadan khayriga inay ka qayb qaataan waxa weeyaan wadada waa la wada leeyahay horta marka hore Soomaaliya oo dhan bay ka dhaxaysaa iyo wixii kale marayaba hawsheeda oo baanu bilownay nagu dhacday anagu ummadda kama lihin mar haddaan ummadda kala hayn wuxuuna ay tahay shaqadii dawladda qaban jirtay dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka inay wax ka qabato wadadan sababtoo ah waanu garan lahayn goboladan Sool Sanaag iyo Cayn ama SSC cid ay ku haleynayso ama ay uga maqan tahay waxaan ognahay oo aan sheegaynaa inay tahay deegaamadan iyo dadkani kuwii ay mas'uulka u ahaayeen ee dawladda u ahaayeen xilka u hayeen u dhaarteen inay yihiin ayaan anagu qiranahay oo waafaqsanahay isla markaa kama hayno wax taakule iyo horumarina waxaanu leenahay horumarinta iyo wadooyinka iyo jidadka iyo biyaha iyo horumarinta arrimaha bulshada aad bixisaan ee aad mas'uulka u tihiin oo goboladan soo gaarsiiya oo wadadan waxaan rabnaa wax nagala qabataan waxaan kaloo baaq u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo shacaba muxsina deeq bixiya nooc kasta ay tahay waa ugu baaqaynaa si gaar ah dadka goboladan u dhashay Sool Sanaag iyo Cayn ama SSC cidiba say isticmaasho iyana waan ugu baaqaynaa waxaan leenahay war wadadan waa tii horeysay ee laga hirgeliyay goboladan Sool Sanaag iyo Cayn isku xidhka gobolada iyo adeegga bulshada tii horeysay laga hirgeliyay weeye waana ta uguna dheer uguna mudan uguna halboolaysan ilaa iyo hadda idin kama hayno taakuladeedii iyo waxtarkeedii iyo isu taageedii idina waxaad cid aad ku haleynaysan garan mayno waxaanu leenahay war wadada idin kama lihiin waanu idin bilownay ka shaqeeyo oo nala qabto oo wixii ay u dhiman iyo waxaad ka qaban kartaanba waana idinku yeedhinaa waan idinku soo dhaweynaynaa waxaanu ka hadlaynaa wadadan Woodward sidii odayga iga horeeyay oo u hadlay ama warbixinteeda u bixiyay baa warkeediina ku dhan yahay waxaan si ku xoojinayaa dhammaan ummadda muxsiniinta ee wax bixiya iyo dadka u maqan oo ama qurbo ugu maqan ama dhaqaaliye magaalo weyn u jira in ay u kacaan wadadan fariinta muhiimka ah aan faraynaa waxa weeye waxaad haysataan iyo waxaad heli kartaanba in loo raadiyo wadooyinkan maadaama ay tahay halbowlihii marayay wadada labada gobol isku xireeyay ee Buuhoodle iyo Laascaanood marka waxaan aad iyo aad u codsanaynaa ama baaqayagu yahay inaanu dhammaan ummadaha muslimka iyo cidii garanaysa wadadan iyo dalkan iyo dadka kan runtii maqlaysa hadalka iyaga in ay u kacaan wadadan oo haday hay'ad tahay iyo haday ganacsato tahay haday qurba joog tahay haddii qolqol la joogo isku tashi bay ku bilaabantay iyo cidii kale muxsiniinta wax ku dartayba dhammaanteed ba hore ay ugu sameeyeen maantana waxaan leenahay war ha loo kaco oo hana lala dhameystiro oo hawshaas waxaan leenahay ha loo kaco waxaan marka ugu horeysa ilaahay ku mahadinayaa intan la qabtay ee maanta taaganahay allihii suura galiyay waxaan marka labaad mahad
u celinayaa dadkii u horay hantidooda iyo waqtigoodaba ee halkaa ay waddadu hadda marayso soo gaarsiiyey. waxaan marka saddexaad u gudbayaa, waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo muxsin ah oo wax la baxaya oo sadaqa jaariya ah naftiisa iyo waalidkiisa iyo ciddii xaq u leh u horumarinaya danaynaya inuu qayb ka noqdo waddadan. waxaa jiray hadal aad iyo aad u leh xikmad fara badan oo Cumar ibn Khattab radiyallahu anhu xilliyada kamida uu yiri waqtigii uu talada islaamka gacanta ku hayay. wuxuu ka markaa joogay Madiina, wuxuuna ka baqayay rida Ciraaq maraysa waddada ay mari lahayd geedku uu ka qabsado ee dhibaatada u gelisa mas'uuliyadda ka saaran ayuu ka walwalay. wuxuuna yiri waxaan ka baqayaa aakhire inta la ii qabsado oo la ii weydiiyo leedahay maxaad waddo ugu bixin weyday. qof kasta oo mas'uul ah oo dadkan maanta reer Woodwood iyo inta ku hareeraysan ee waddada Buuhoodle ilaa Laascaanood maraysa ay mas'uul u hayaahay waxaa saaran xil baa saaran. baabuurka halkaa ku gadooma ama dhiiriga ku gala ama ambalaasta halkaa cisbitaalka intay ka soo qaado gaarsiin kari weyda meeshii ay u socotay cisbitaalka ay u waday ee qalliinka ay u socotay gaarsiin kari weyda, mas'uuliyad baa ka saaran. waxaan laga yaabaa in aakhiro loo weydiiyo leeyahay waxbaad ka qaban karaysay maxaad u qaban weyday in aakhiro loo weydiiyo ayaa laga yaabaa. marka dadka mas'uuliyiinta ah si gaar ah ayay arrintan u taabanaysaa, dadka hantiilayaasha ahna si gaar ah u taabanaysaa. waxaa fiican Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka hadduu hanti siiyo inay ka muuqato dadkiisa iyo mujtamaciisa ay ka dhex muuqato, sadaqada ay ka dhex muuqato. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka hadduu dhinto camalkiisa waa la laabayaa wanaag kasta oo uu leeyahay marka laga reebo saddex shay. saddexdaa waxaa ka mid ahaa sadaqa jaariya ah oo qof ka tagay. sadaqadaasi waxay noqon kartaa wax kasta oo ay ummaddu ku intifaacaan, ama geed uu beeray ama waddo uu falay ama masjid uu dhisay ama guri uu dad uga tagay ama ceel uu qoday. iminka anagu waxaan meesha ka wadnaa shaqadii riiga oo biyihii baanu gacanta ku haynaa. waad arkaysaan oo waxaan gashanahay waa shaqadii, hadda shaqadii baa layga soo saaray. waxay taasina ku timi juhdi iyo dadaal iyo waxqabad fara badan oo dhinacyo fara badan la iska kaashaday. tanna haddii laysla kaashado oo gacmo wada jir bay wax ku gooyaane, haddii qofka mas'uulka ah iyo qofka shacabka iyo qofka hantida haystaaba ay isku kaashadaan meel wanaagsan bay gaari karaysaa. waxa ka yar haddeer 10 mitir ku dhow ayay sidaa tahay. hadda waxaan soo maray 2 maalmood ka hor baan soo maray. waxaan dareemayay inaan laami hayo halkii aan ka soconayay markii hore ama ka dadka qabanayay ama aan aan jira ka leexanayay. waxay aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd iyadoo intay buuraha ka dhacdo laamiga gaadho oo maanta lagaga soo dhacayo tuulo sabakaab lagaga soo dhacayo oo ilaa Buuhoodle aadan meelka aad ka qabata aan lahayn. meeshan aanu maanta taaganahay waa degmada Woodwood baanu joognaa. jidka halbowlaha ee isku xidha Cayn iyo Sool ayaanu taaganahay. jidka 83 kiiloomitir baa la geed qaaday. iminkana waxaa lagu kala bixiyay 10 kiiloomitir ayaa lagu kala bixiyay jaygii caratuurkii lagu kala bixiyay. waxaanu leenahay dadka muslimiinta ama goboladan u dhashay ee dibadda jira ama ganacsatada ah ha ka qayb qaateen jidka khayriyada ah ka qayb qaateen. dadka qolqol joogtana waxaan ugu baaqayaa xooluhu kama xaraansana jidka, sakooyinka ku baxaya waxaa ku baxaya awrka yar ee waagu cunayo, orgiga jiqiiqa baa ku baxaya. dhammaan aan ka wada qayb qaadano jidka halbowlaha waxbuu tarayaa dadka. xagga ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda federaalka ah waxaanu ku dhaliilaynaa. waxaan u malaynayaa inay baag madow ku xidhay goboladan Sool, Sanaag iyo Cayn waxtarra uusan ka soo gaadhin. arrimaha bulshada ay bixinayaan dadka ay u dhaarteen baanu ka midnahay. waxaanu jecelahay inay ka qayb qaataan hawsha iyada jidka inay ka qayb qaataan oo ay taakuladii ay bixinayaan dadkaanu ka midnahay inay soo gaarsiiyaan. salaamina ummadda Soomaaliyeed ee islaamka meel kasta ha joogtee. waxaan idin sheegaynaa in ay sidaa uu ninka odayga ugu horeeyay ninka taageerihiisa uu sheegay jidkaas tacabkaas waxana galeen waxana ka dhiman yihiin.
awoodda dadkuna ay tahay maanta la ogyahay meesha la joogaba awoodda dadka la ogyahay waxaan ku xoojinayaa hadalladaa hore laga boorbixiyey ee xaqiiqda ah ee dhabbada ah wax alla wixii islaama ee danaynaya iyo wax alla wixii ummadda Soomaaliyeed ah inay ka qayb qaataan oo ay u kacaan oo jidka waa la maraya dhulka waa la maraya waana khayriye oo waxa yani waa sadaqooyinkan go'an bay kamid tahay ay ka mid noqdaan oo yani la isku tashado laga kaco dibad iyo gudaba cid walba oo martaa dhabbada qola gaar u leeyahay cid gaar u leeyahay waa jid weey waa sabafal weey marka sidaa darteed waa in ummadda Soomaaliyeed waxa aan hadalka ku soo gaabinaya jidka waad aragtaan waa tacab galay haddaan tacabka markiiba la dhameystirina dee tacabku waa nusqaamaya waa in fadhiga laga kaco wixii alla wixii hayayba waa in fadhiga ka kacaan Buuhoodle iyo Laascaanood jidkaasi 10 kiiloomitir ee la sameeyay yani inta kale waa sidii hore weeyaan inta hadda la sameeyay haddaan degdeg wax looga qaban oo aan lagu shubin daamurkii iyo jaygii waxa laga yaabaa bishaas xilliga roobka la heli jiray in roobkaas uu wax weyn yeelo marka laba qolob waxaan u dir lahaa baaq awalan qubba joogta deegaanka waxaan rabaa waan idin oran lahaa dal kasta oo aad joogtaan in gudiyo laga qoro wax la yiraahdo gudiyo laga sameeyo idinka is ogsaad maxaa u kala joogtaan waxaan kaloo baaq u dirayaa deegaanka soonkan warwid ilaa iyo bayaal xamarle wixii balacad ilaa geedheer intaas la dego waxaa la sameyn doonaa sida u dhaqsaabad haddii ilaahay idmo in magaalo walba gudi laga sameeyo gudigaas waxaan doonaynaa in ay qof kasta calaa ra'si qof kasta oo rag ah ama dumar ha noqdo oo deegaanka ah loo qorsheeyo lacag uu bixin karo bishii dhabbadaasi 2 qarniba baabuurtu maraysay oo ay ku maraysay dhibaato maanta la isu xilqaamay yaa muslim ay taagan tahay yaa Soomaaliyeey in wax nala ku taro oo maxaan ku raadayay dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dadka uu xukuumaanu ka mid nahay dadka uu dhaartaan ka mid nahay wax naga soo gaaraan maba jiraan haba yaraatee haddii abaar dhacaan iyo haddii xanuun dhaco midna wax naga soo gaaraan waxaan maalayaa dawladdu midaan intaas oon koonfurta waliba hawiyuhu dego uma dawladdu tawl malanaya midaan xaggan iyadu kuma jirtaba talada ra'iisul wasaaraha la hadlaynaa maadaama aanu nahay ninka sababta uu kursiga uu ku helay ama qaybta uu ku metelo kursiga ra'iisul wasaare Xamsow shacabkii reer warwar waxay ku leeyihiin ama dhulbahantaa reer Buuhoodle iyo Laascaanood dhabbada wax ka qabo baaq dheer baanu kugu soo jeedinaynaa 10 kiiloomitir oo 380 laga jaray waxaa hadhaya 370 kiiloomitir waxaan fariin u dirayaa 2 group gobolka Buuhoodle iyo Laascaanood iyo deegaanada u dhaxeeya ee magaalooyinka wadadaas marasay tuulooyinka ama degmooyinka ee wadadaas maraso wadadaas idinka idin dan tahay annagu waan u bilownay dhamaystirkeedana waxa iska leh ummadda muxsiniinta ah injooyada maxalliga iyo ku international kaba ah labada qoloba waxaan leenahay waa wado cid kasta maras jaanib kasta maraya muslim iyo gaalba waa maraya waa wado oo u furan tahay qof kasta inuu nagu soo caawiyo wadada aanu bilownay inaanu dhamaystirno odayaasha miyiga degan iyo hablaha xoolaha haysta sida odayaasha hore sheegeen de ariga iyo niriga yar iyo waxarta yar waa adii la iibiyo waa gelaysa fudla tuure ma soo noqda Soomaalidu kuma amaahi jirta waxaan leenahay 73 kiiloomitir hadhay hadii dhowrkii bilood 10 la dhameeyo kiiloomitir oo sida loo dhameeyo waa gaaraysaa marka waxaan leenahay qurba joogta u dhalatay labada gobol gaar ahaan iyo cidii mas'uula ee ka soo jeeda deegaamada waxaan faranaa nagoo odayaashii deegaanka Woodwood mas'uuliyiinta wadadana ku jirna in aad ka soo qayb qaadataan idinma hayno dad xildhibaanatiin iyo haddaad tihiin ganacsato intii hore wuxuu la baxday ee qurba joogta ahayd iyo intii deegaamadana ilaahay miisaanka xasanaadka u saaran leenahay ma sha Allah wadada waa raysanay intii hadda bishaan intii xageedii dambe
wadadani samaysnayd hadda markaan marano meesha aanu ka dhaafno inta samaysan wadnaha ku go'ayo rakaabku waa karahsanaya alla yaa noogu celiyo bay oranayaan intaana waa iska gaari doonaa baan ku yidhi insha Allah cid kasta waa isku tashananaa waa kacnaa haddii alla idmo waxaanu ka codsananaa dadka muxsiniinta ah ee wanaagga jecel inay ka soo qayb qaataan dhabadan oo u soo dadaalaan iyo qurba joogta meelaha joogta ku laqlaqaysan waxaan ka shaqeeyaa ilaa Garowe iyo meesha la yaaho Buuhoodle intaas ka shaqeynaa marka wadadani waa aad iyo aad bay dadka u anfacaysaa waa isku xid wadanka isku xidhaya Itoobiya iyo Soomaaliya isku xidha ilaa Soomaaliya